Hiiraan ayaa booqday deegaanada ay dhawaan dagaalada ay ka soconayeen. Farax Ibraahim Yacquub Farax Dayax ayaa qodobkaasi warkana faahfaahinaya. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda federaalka Soomaaliya Abdifitaax iyo wafdi hogaaminayo ayaa waxay booqasho ay ku tageen deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku dagaalameen beelo isku haysta deegaanada Deefow iyo Kabxaley ee gobolka halkaas dhawaan uu ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay dadkii la socday Abdifitaax gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si hoose ula hadlay idaacadda Danan ayaa waxay sheegeen in Abdifitaax ay la socdeen suxufiyiin iskana qariyay kaamirada inay qabato deegaankaasi la wareegay waxaana wararku inta ay ku darayaan in Abdifitaax in ciidamadii halkaasi la wareegay lagana saaray dadkii deegaankaasi ku noolaa oo ciidamadii halkaasi qabtay gel kuwaasi oo wararka ay sheegayaan inuu ugu bishaareeyay dadaalka ay muujiyeen booqashada Abdifitaax markuu soo dhamaystay kadib ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku laabtay degmada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maleeshiyaadkii qabsaday deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin deegaanka Deefow halkaas oo ilbihii loo qalay iyadoo dadkii faraha badnaa ee ku noolaa deegaanada Deefow iyo Kabxaleyna ay dhulka hawdka ay ku maqan yihiin iyadoo dhinacii kale ee halkaasi hore ugu sugnaa ee hubaysnaa ayana sheeda kore ay ka eeganayaan xaaladda deegaanada Deefow iyo Kabxaley wararkii ugu dambeeyay ee deegaanadaas ayaa waxaa lagu soo waramayaa in caga badan imanka aysan ku taagneen iyadoo mar walba la filan karo in mar kale halkaas dagaal ay ka dhacaan.